السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أمة الصومالية وإن سلام يا قفل بمنصب كرسي المقعة وكل جوغ سفير كدمان شعب الصومالية. لما دور عيدة القرآن عندهم برا الجدونا يدينا حسوس يريدونا بداينا كحسوس الدونا. سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعدكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. حسنا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس عدالة تحكموا أي فريسة عاد غفر ومسلمة أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعدكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. إلينا وحو البوار كاون مغلا أبو ما تسيعي كاس وحوها وقاس محمد جينو عمر وعيالها قرآن كينا وغفرية حفلة عاوة markan waxa uu yeeri doonaa mid kamid ah gudiga qaban qaabada xafladan oo caawaan uga mahad celinayno sida quruxda badan ay noogu soo agaasimeen gudoomiyaha gudiga qaban qaabada Axmed Maxamed Cismaan Fak. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد وحينات صنعتي الله سبحانه وتعالى نوفد به أنا ما أنت نشكره الإمام قمانتين أن أدبر الرئيس مدحويني حسن الشيخ محمود مدحويني طمنات الجمهورية الصومالية. ما أنا كذا يقولي بحكم قابلني من ربنا جرتي أبو بنا أضياشة لكن كي بنجرد باريس مانتو مركا هلكا وحكوا حصا قدي وحيد رقم قابلني ليبان محمود محمد iyo fay roble iyo gudoomiye yariiso xalfadu way noo furan tahay. waxaan u sheegaa dhammaan marka sharaf ka soo qaybgashay xalfadan in xalfadan si qurux badan noogu dhamaato oo xalfad aan xanaf lahayn qofna nagu duraynin oo siyaasadna ku jirin aan ugu dabaaldegayno qarannimadeena wadajirkeena iyo soomaalinimadeena. magaca gudiga xalfadda way inoo furan tahay. kuwa horaan usoo qabanay kuwa kalena waa qaban doonaa. waana mahadsantihiin. guddiga safaaradda nooga imaaday gabdhaha waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkaan uma soo istaagin inaan khudbad jeediyo. farxad ayaan u soo istaagay. caawa waxaa naga badan Soomaali heshiisa dunida la heshiisa mudane xasan sheekh maxamuud xafladii hambaladiisa. anugu hadal yaqaan maahi ganacsatadana waa la iga leeyahay oo dad iga lahaa jooga qayaar sida saaxiibkay boos. marka xoogaa waa ka da'weyna sidaas darteed ayaa halka u soo istaagay. waxaan hambaleynayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud. waa nin aan aad u aad aan u aqaan aniga qaasatan. hadalkaygu wuxuu ku urursan yahay hal la xushmeeyo xasan sheekh waa xaakim xukunka noo qabteen. waxaan mar kale u mahad celinaynaa fanaanadayna maandeeq nuur garaash oo iyadu meel dheer inooga soo safartay siday caawa dhammaanteed noo farxad geliso waqti qurux badanna noola qaadato. kama daanayno inaan u mahad celino maandeeq nuur garaash oo kamid ah fanaaniinta ugu waaweyn. istaago sacabna lagu soo dhaweeyo maadaama waqti igu soo hortay. سوا قاونا فيورا يقرنا حوجا تستاجا
وإذا سلام على ما شاء الله تبارك الله هدايا وان هذلي وان إذا سلامي كلين وحارب عاوينا وحير ما شاء إذا كده ما إنكستون جعلنا نقربيو أنا قاعدان سومالنا هاي دد زعلنا هاي دد ولالنا هاي dad isku diin ah nahay waxa jiro abaaro wadankeena ka jiro waxa ogaateen idinka barwaaqa ku jirtiin maanta qof walba lacag u soo dhicaysa ama uu shaqaysanaya xafladaha la qabanayo madaxweyne xasan sheekh waxaan go'aansanay fanaaniinteena inaan u fidino shacabka aan ka codsano inay si degdeg ah wadan walba aan tagno in aan u sheegno codsigeena inay abaaraha lacag u aruuriyaan sida Finland aan tagay hadda waxaan socdaa Swiiska Paris hadda waan joogaa waxaan idin ka codsanayaa inaad lacagaha abaaraha Soomaaliya maanta ka jira biila'aanta baahida ilmaha yarka ku dhamaanaya inaad si degdeg ah $2 wax bay u taraysaa $2 qofka maanta loo diro axsanta waay marka annaga waxaan nahay Soomaali jecel ha guulaysato Soomaali sida DJ daibkeenage Soomaali baby Somali baby, waxaan la hilmaami karaa asigana bara ministerkii ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble asigana maaragtay jazakumullahu khayran lanahay waa gudoomiye doorashada oo dhan ahay iyo guddiga oo maaragtay doorashada gudoomiyaasha golaha baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka dhammaan wax kasta oo wanaag oo dhacay amba waagi sii socdan waa ku faraxsanahay waana maaragtay kuwa hambalyeynaa intii qabatay intii waxaysaba awada waa xawo aniga macnaha waa faraxsanahay farxaduna xilliga la soo jeedo ama waqti xilliga la yimiday waa la garan karaa waxaan sameehaynaa marka muhiimaddu waxay tahay soo dhawow xasan sheekh maxamuud mar kale waan kugu hambalyeynaa maaragtay soo noqoshada aad xilka mar kale ku soo noqotay waxa lagu hambalyeynaa ama lagu waxaynaa waxaa waaye wanaag iyo waxqabad aa lagaaga fadhiyo ummadda Soomaaliyeed kaaga fadhidaa dhalinyarada soo qabanqaabiya xafladan farsamo yaqaanada noo maamulaya xafladan sharafta badan kasoo qaybgalayaasha dhammaan jaaliyadda ku dhaqan waddanka Faransiiska ee xaadirka caawa dhalinyaro haween inta magaaladan ku dhaqan gobolka France iyo kuwa ka yimid gobolada mas'uuliyiinta ka socda safaaradda ganacsatada aqoonyahanada mas'uuliyiinta kale iyo fanaaniinta looga yimid wadamada kale dhammaan waa idin salaamayaa caaway waxaan meeshaan ku joognaa waanu isugu nimid inaan u dabaaldegno marxalad ka mid ah marxaladaha taariikhiga ah ee waddankan uu ku sugan yahay marxaladaasoo ah inaan ka soo wareegnay marxalad kale una wareegnay marxalad kale marxaladaasi aan u wareegnay waxay tahay in dimuqraadiyadanadii socotay ee qori isku dhiibka ahayd inay noo sii socoto marxaladaasi waxaa mar labaad hogaamiye u ah mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha tobanaad
ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya horena u ahaa madaxweynihii 8aad waa arrin ugub ah oo taariikhda Soomaalida ama Soomaaliya ugub ah in mar labaad qof xil soo qabtay madaxweyne ah mar kale inuu ku soo laabto taasina iskama dhicin waxaan dareemi karnaa inay ku timid dadaal ay muujiyeen asaga iyo tiimkiisii Soomaalidu waxay ku mahmaadaan wixii rag u kaco rabbina aqbalo way rumoobaan xasan sheekh maxamuud waxaan ugu hambalyeynaa mas'uuliyaddaas xoogga leh inuu noo qaaday annaguna dadkiina matalayay u dhiibeen mudana madaxweyne waxaan leenahay soo dhawow السلام عليكم ماشي واحد المسؤول استاجي قدوميها أقرأ مدني عبد حاشي قفة ترافيك أسكول هذا لكن بعدها بحيل الدنبئة تاعي عضو صوت دوبي ما تعود كاسرين جلسينا إن شاء الله. الرحمن الرحيم. اللي يرى جوكتا باريس تاغيردا دولدان cusub siinaysa waxaan ku taageerayaa ugana mahad celinayaa inay dawladooda cusub taageereen oo diyaar u yihiin dalkooda wixii ay ka geysan karaan ee horumara inay ka geystaan waxaan intaa ku dari lahaa dalkeena abaar baa hadda ka jirta dad badan ayaa barakacay oo dhibaatooyin abaaruhu ay u keeneen haysta inta ayna abaartaasi isu bedelin maxay ahayd macaluul in dadkeenu ku dhammaan waxaan soo jeedinayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan in qof waliba wixii tabara uu leeyahay lagu tabaruco sanaaduuq la sameeyo oo loogu rido dadkaas wax loogu ururiyo waxaan idinkaga mahad celinayaa inaydun isxilqaanteen oo dawladdiinnan aad taageero buuxda siinaysaan soona dhaweynaysaan aad iyo aad baad mahadsantihiin waa idinku ammaanayaa waa idinku taageerayaa waa idinku ammaanayaa waxaan u yeerayaa waa beri filfil oo ah mid ka mid ah abwaanada caawa goobta nala joogo gabayga ugu talagalay caawa waa habeen aad u farxad badan dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabadan sharafta badan aad baan ugu mahad celinayaa talabaad waxaan u mahad celinayaa madaxweynaheena jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaan ugu talagalay tix yar oo gabay ah inaan caawa halkan uga tiriyo marka waxaan doonayaa inaad dhagiina yar yaamaysaan ilaahay dunida uumayo dadkuna aqliga galsho xasan waynu doorane wuxuu doona sii والحصوص يكبن كل قرن يا حسن تاريخ لبال ذهب بوضلتنا وبجيها إلهي دوني ذا أوما يوضتنا أخيك قلشو حسن وين دورني وحودون السي والحصوص يكبن كل قرن يا حسن
Soomaaliyeedo manta diida wanaagga doorta dadaala horumarkaan Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u yeerayaa mid ka mid ah akhtariinta Soomaaliyeed ee Faransiiska oo Cabdiqani Canama soo dhawow. inaan soo dhaweyno madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud mudane madaxweyne maasanid madaxweyne hambaliyo midda labaad wax badan inaan dhahno meesha ugu imaanin laakiin waxaa idin sheegaa aad ugu faraxsanahay Soomaalida meeshan joogto insha Allah mar dhowna waxa waaye bisha toddobaad adi aakhirkeeda insha Allah filimka Faransiiska Tulamud Mabel Mike filim la hayo soo socdo marka insha Allah taala waa ka sabarasho wanaagsan wax kalena ma dhihi karo salaama kulli aad baan idin salaamayaa ka soo qaybgalayaasha xafladda quruxda badan oo maamuuska leh marraa waaxid sharaf bay noo tahay inaan caawa ku dabaaldegno France Paris annagoo ku dabaaldegayna madaxweynaha cusub mudane Xasan Sheekh madaxweynihii sideedaad mar labaad madaxweynihii tobnaad waa Jaanis Xasan Sheekh waa qofkii Soomaali ninkii ugu horeeyay intuu mar madaxweyne noqday mar labaad soo noqday weeye Jaanis way xoog badan marraa waaxid maasha Allah aad baan u faraxsanahay annagoo dhinacaa waxaanu qaadaynaa madaxana furan kasoo qaybgalayaasha haddaan haddana hebel iyo hebel waxbaan ka tegayaa kulligood waa mahadsantihiin waan idin salaamayaa xubin kasta qof kasta magaciisa iyo maskabkiisa ayaan meeshiisa ku salaamayaa madax iyo majo rag iyo dumar haweenka waa u badan intaan salaamaya aad baan idin salaamayaa waxaan soo gabagabeynaynaa qaybta hore khudbadaha waxaan codsanayaa inaan u yeero isaga lagu yeerto halkaan waxaa khudbadaha bartikool ahaan noo soo xiri doono wakiil ay soo dirsata safaaradda jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya ee ku leedahay dalkan Faransiiska isaga ayaa ka codsanaya inay soo dhaweyso una yeerto madaxa immigrationka safaaradda Soomaaliya ee Faransiiska injineer Maxamed Cabdiraxmaan Axmed waxaan leeyahay mudane madaxweyne soo dhawow sidoo kale waxaan leeyahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee meeshaan iskugu timid dhammaanteed xafladda soo qabanqaabiseen sida sharafta leh ayaa soo qabanqaabiseen safaaradda Soomaaliyeed waa niga mahadcelinaysaa mar kastana way niga garab taagan tahay xilliga oo waqti damba iyo juhdiga geliseen hooyooyinka dhammaan bulshada kala duwan meesha iskugu imaatay waxaan leeyahay walaalayaal waan soo dhaweynaynaa madaxweynaheena Allah la garab galo shaqada culus ee uu hayo horena uu soo hayay waa qabiir aan hore u soo wada shaqeynay muddo badan waxaan rajaynaynaa insha Allah kii ku guuleystay inuu noqdo hawsha loo idmaday sidoo kale waxa ku dhigiisu wuxuu ahaa madaxweynaha markaan dambe Soomaali isjecel oo nabada dunidana heshiis la ah iyo nabada marka waxaan rajaynaynaa insha Allah inay sidaas noogu dhimaato waana xilli dambe safaaradda markasta way garab taagan tahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Faransa walaalayaal mar kale waxaan leenahay madaxweynaha Soomaaliyeed madaxweyne soo dhawow xilkan Allah kula garab galo sidoo kale walaalayaal waxaan naga codsanaynaa haddaan nahay safaaradda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee abaaraysan ee dhiban oo dhibaatadu hayso inaan ka qayb qaadano inaan ka contribution kooda ama waxa waaye wixii naga qof kasta uu awoodo inuu ka qayb qaato dalkii macluul baa ka jirta walaalayaal dadkii Soomaaliyeed oo walaalaheena haddaan nahay bulshada Faransa ama Paris waxaan rajaynaynaa inaan ka qayb qaadano waana mahadsantihiin وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته